بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال إذن هانتي بميل كستو joogtaan halkan waa telefishinka madaxa bannaan ee Rayo Tv studio labaad ee uu ku leeyahay gudaha magaalada Boorama. Daawadayaal waa xilliga aad nooga barateen inaan soo tabino barnaamijkii wargeysyada oo alaabaan la socodsiiyo anigoo sakarie cabdi shafaarax sakarie saxane. Daawadayaal barnaamijkeenan habeenkan caawa qodobada aad ku maqli doontaan ayaa waxa kuwa aad u xiiso badan waa soo soo diyaarinay wargeysyada kala duwan ee ka soo baxa gudaha magaalada Hargeysa kuwaas oo soo xiganaya wargeysyada caalamka ee daawadayaal bal aynu eegno qodobka ugu horeeya habeenkan caawa ee barnaamijkeena wargeysyada. wargeyska geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ee xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu bogiisa hore ku soo daabacay isagoo soo xiganay wargeysyada caalamka in madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu diiday in ay dalkeega timaado haweeney lamaana ku ah ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson kadib markii lagu helay in ay soo booqatay Somaliland oo ay la kulantay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. bal daawadayaal qurbadan sida ay u dhigantahay aynu wada daawano. wargeyska saxafi ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ee xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu bogiisa hore ku soo daabacay isagoo soo xiganay wargeysyada caalamka in shirkadda Samsung ee alaaba caanka ku ah soo saaridda moobilada ay ku dhawaaqday in bilaha soo socda ay soo saari doonto moobilo casri ah kuwaas oo ka tayo badan moobilada aynu waqtigan isticmaalno. bal daawadayaal warbixintan sida ay u dhigantahay aynu wada daawano. wargeyska jamhuuriya ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ee xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu bogiisa hore ku soo daabacay isagoo soo xiganay wargeysyada caalamka faa'iido darrada ay leedahay waqtiga badan ee ay bulshada ku lumiso fadhiga maqaaxiyaha. bal daawadayaal warbixintani aynu wada fiirino. daawadayaal waxaan filaynaa in qodobkaas aad ka wadaashaan waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii wargeysada oo habeenkan caawa aan la socodsiinayo anigoo sakarie cabdi shafaarax sakarie saxane. waxaanad kala socoteen telefishinka madaxa bannaan ee Rayo Tv studio labaad ee gudaha magaalada Boorama. bal daawadayaal barnaamijkeena habeenkan caawa aynu ku sii soconno qodobkaasi qodobka ku xigana wuxuu sheegayaa wargeyska geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu bogiisa hore ku soo daabacay isagoo soo xiganay wargeysyada caalamka in madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ka digay inuu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Mareykanka kadib markii ay khalkhal aad u fara badan uu soo galay xilliga uu khudbadaha jeedinayo. bal daawadayaal warbixintan isla u dhigan tahay aynu wada daawano. waa tahay daawadayaal waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenan habeenkan caawa oo aad si toos uga daawanayseen telefishinka madaxa bannaan ee Rayo Tv studio labaad ee gudaha magaalada Boorama. waxaad inoo socodsiinaya barnaamijka anigoo sakarie cabdi shafaarax sakarie saxane. bal daawadayaal habeenkan caawa qodobka u dambeeya barnaamijkeenani waxa uu sheegayaa wargeyska sharqal awsad ee ay leeyihiin dalalka carabta ayaa waxa uu soo qoray martidii uu boqorkaasi dalka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis uu ku soo casuumay gudashada waajibaadka xajka magacyadoodii iyo shirarkii ay galeen. bal daawadayaal warbixintani aynu wada fiirino. waa tahay daawadayaal habeenkan caawa intaa waxay noogu dhammaaday barnaamijkeenii wargeysada oo idin la socodsiinaya anigoo sakarie cabdi shafaarax sakarie saxane. waxaanad kala socoteen telefishinka madaxa bannaan ee Rayo Tv studio labaad ee gudaha magaalada Boorama. daawadayaal barnaamijka xigeenta dib u kulmi doono aniga bahdiga la qayb qaadatay soo tabinta barnaamijka habeenkan caawa waxaan ku dhaafaynaa waad ku mahadsantihiin daawashadiine habeen wanaagsan saaxiibayaal.